أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين. habeenkii xalay ahaa waxaa lagu qabtaa xarunta jaamacadda caanka ee Asar Shariif xaflad ballaaran oo lagu maamuusay dhalashadii rasuulkeena sharafta badan Maxamed bin Cabdullaahi naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. xafladan oo ay ka soo qayb galay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar isla markaana wakiilka jaamacadda Carabta ee Soomaaliya Ambassador Cabdullaahi Xasan Maxamuud iyo qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Masar iyo ardayda wax dalkan iyo aqoon-yahano iyo marti sharaf ka socda jaamacadda Asar Shariif. xafladan oo soo qaban qaabiyeen qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar waxaa muxaadarooyin ka hadlaya nolosha iyo kifaaxa nabigeena suubanaa nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ka soo jeediyey xeeldheerayaal xagga diinta ah iyo qaybaha sharciga ee daraasaadka islaamka ka dhiga jaamacadda faca weyn ee Asar Shariif. Dr. Xamid Maxamed oo isagoo ah professor wax ka dhiga jaamacadda Asar ayaa si xeel dheer uga hadlay una soo bandhigay qayb ka mid ah noloshii iftiinka badneed ee Nabi Maxamed isagoo tusaalooyin u soo qaatay dhinacyadii raxmadda iyo dulqaadka. فيطيل السجود مخافة أن يصيب الحسن والحسين. انظروا إلى الأخلاق في معاملة الأبناء، انظروا إلى معاملته صلى الله عليه وسلم لزوجاته وكيف كان يدخل عليهن بالبشاشة، يدخل باشا منفرج الأسارير، وأكثرنا كمسلمين يدخل بيته عابسا مكفهرا ظانا أن ذلك هو الرجولة، مع أن أخلاق المسلمين في معاملة الزوجة تحتم علينا ويأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان معاملة الأسرة. دكتور عبد العزيز القريشي oo isagoo aqoon durugsan u leh taariikhda islaamka ayaa si hufan ugu warramay sidii lagama maarmaanka ay u tahay in muslimiinta ay ku daydaan nabigooda nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee si ay u helaan buu yiri qeyr adduunyo iyo mid aakhiraba wuxuuna muslimiinta ku booriyay inay bartaan ixtiraamka nabigooda suuban nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. عيال وصاحب مسؤوليات يدرك أن عمه أبا طالب ذو عيال وذو مسؤوليات، فإذا به يستأذن عمه في أن يرعى الغنم، يرعى الغنم وهو سيد من سادات قريش، ابن سيد من سادات قريش، يرعى الغنم وهو في نعومة أظفاره. نعم، ليعلمنا ولنتعلم من سيرته عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره أنه ينبغي أن نعمل فلا عيب في العمل، إنما العيب. safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar Ambassador Cabdullaahi Xasan Maxamuud oo isaguna xafladda ka hadlay ayaa ku tilmaamay kuba diidaya xuska nabigeena kuba aan wax badan ka garanayn shakhsiyaadka qaaliga ee nabigeena iyo taariikhdiisa iyo waliba halgankii dheeraa u soo galay faafinta diinta islaamka isagoo arrimaha falanqeynayna waxa uu yiri لا يفهمون حب الرسول ولا عظمة الرسول ولا من هو الرسول محمد. الآية القرآنية التي شرحها العلماء وإنك لعلى خلق عظيم، الخلق يعني الرسول لا يتسم بالخلق العظيم فحسب، بل كأنه يمتطي سهوة الخلق، كأنه يركب كإنسان يركب جواد يحكم عليه كما هو يسيره حيث يشاء. كان الرسول كذلك، كان هو الخلق الحسن، لأن الآية القرآنية تشير على هذا المعنى. وإن لم يقل وإنك لفي خلق، قال وإنك لعلى خلق، كأنه يمتطي سهوة الخلق، وهذه هي الحقيقة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. سنكون نفله إذا لديك سين معيشة هذا سين وحو رب جحود سعي أمر كاي سيك السودودي بتبع ديك أنساتك كامرني سمان ودنا ديك علىهم سحر كفولي إن الصفات هذا شيء له مجرى أو صداده
adigaa sargooyo khalqigan saa ah uu yidhi surma seegto adigaan ka dhigin waxaad samaysaay sancada iyo ibdaacaagu waa si aan la gaadhayn sidaa dooni adigaan faloon lagu su-aalayne samaal oo dhan adigaa lahoon saxar ku fuulayne sifadaada shaylihii ma jiro oo sidaada ahe sidii khayr le noo yeel adiga saatirow jiray mahad carabow cali telefishinka universal qaacat almutamaraat alqaahira